wasiirada kala duwan oo ugu horeeyo wasiir Xasan iyo ragga kale colleagueskayga meesha joogay hablahaba mas'uuliyiinta xildhibaanada labada aqal ka kala socda gudoonada gudiyada kala duwan wasiirada ka socda maamul goboleedyada guud ahaan bulshada madashan isugu timi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sharaf weyn bay maanta noo tahay inaanu idin kala qayb qaadano munaasabadan lagu daahfurayo laguna saxiixayo barnaamijkan weyn sida la sheegay mid laga fulinayo guud ahaan mandaqadan aynu ku dhaqannahay ee geeska Afrika sabab ayaa looga fulinaya laba meelood ba adduunka hadda ay ku soo noqnoqotaa abaaraha duruufaha cunto yarida iyo waayaha adag ee dadkooda ay ku nool yihiin meel waa geeskan inagu aynu ku naalno ee Horn of Africa meesha kalena waa dhulka saaxilka loo yaqaano Niger iyo Mali iyo Chad iyo dalalka war weyn hare weyn oo la oran jiray Lake Chad oo bugaagta lagu dhigan jiray hadda carruurtaaba kubadda ku ciyaarta oo adduunka meelaha loo dalxiistaga kamid ahaan jirtay biyihii baa ka guray mar haddii biyo la waayna nolol waa la waayay weeye maxaynu wadaagnaa marka labadeena qolo waxaynu wadaagnaa hab nololeed waxaynu nahay xoolo raacato iyo beeraley yar oo isku dhex jira agropastoralist dadka la yiraahdo isbeddelka cimilada ee adduunkan sida weyn u saameeyay ee wasiirro fara badan oo halkan fadhiya wasiir Xasan iyo raggiisu ay ka mid yihiin wasiir Cali iyo ay hadda ka yimaadeen magaalada Dubai dalka Imaaraadka Istaga Carabta oo tii 8-aad ee inta la wada fadhiisto waxa la iska weydiiyo war isbeddelkan cimiladu muxuu yahay meelaha ugu ba'an ee uu saameeyo waa Horn of Africa iyo meesha hadda aynu sheegaynay iyo dalal kale oo ay ka mid yihiin Pakistan iyo meelo kale waa run Mareykankana wuu saameeyay isbeddelka cimiladu laakiin wuu naga tun weyn yahay oo kharash iyo lacag buu haystaayo dadkiisi wuu kabaa dadkiisi biyo gaarsiinaya adduun badan buu haystaa ilaa iyo German iyo Turkey iyo adduun weynaha wabiyo guraya iyo waxan aad arkaysaan kaymahan gubanaya waxay ku lug leeyihiin isbeddelka cimilada marka nin faruuran baa bari wax la yiri warniyo maxaa dabayl dhacaysa wuxuu yiri adeer waanadba u faruurneen buu yiri marka dabaysha adduunka ka dhacaysa baynu inagu Afrika kaga naalaayo hoonka kaga naalnaa Soomaalina u nahay maxay inaga gaar inoogu saameynaysaa marka inaga dhaqaalaheena ayaa ku dhisan oo ku tiirsan xoolo iyo beero waliba beero waaweyn oo commercial maaha waa beero dadku ay ku noolaadaan bil iyo xoogay ka horbay ahayd marka xildhibaanada halka fadhiya qaarkood aanu ka wada shaqaynaynay daadadkii saameeyay deegaanada waxaan xasuustaa nin Soomaaliyeed oo 9 foosto oo badarkii u soo go'ay ay u yaaleen oo daadkii ka qaatay hadhowna waxa la leeyahay adduunka ha laga soo dawariyo waa danyarnimada umuu dhalane duruufa ku keenay duruufo ka baxsan tamartiisa qof ahaaneed awoodiisa ka baxsan ta qoyskiisa ka baxsan ta deegaankiisa mararka qaarkood dawladuhuna aan la tacaali karin waa sababta hadda adduunku intuu isu yimaado loo aasaasay sanduuqa la yiraahdo Loss and Damage Fund waa sanduuq weyn oo la leeyahay war isbeddelka cimilada rag baa keenay ilaahay ka sukow dad asbaabo scientific baa jira waxa keenay nimankii oilka soo saaray nimankii warshadaha samaystay ee Europe iyo North America iyo Asia u badnaa ayaa heerkulkii adduunka kordhiyay saameynteedina waxa la tacaalaya kuwa aan wali fartaba suba ku darin oo wali aan oilkoodii markaasay qodan marka halka cadaaladda hal ilaaliya baa la yiri waa dooda hadda halkaan ku soo galnay Horn of Africa marka waxa la yiri waxa ku nool 250 milyan oo qof waxa la yiri 250 milyan ka qof 160 milyan waxay mar walba ku sugan yihiin xaalad adag oo cunto yariya boqolkiiba 80 dhulkuna waa dhul nooc minal
لما دجان أسود وبيكليه Soomaaliya oo iyadu aynu ku noolnahay dalkeena ah dadka Soomaaliyeed inkastoo ku nool yihiin dalal koodan hab nololeed bay wadaagaan waa sababta leeyahay hal la sameeyo xoolo dhaqatada Soomaalida iyo kuwa aan Soomaalida ahayn ku nool Kenya oo kale Ethiopia noloshooda la eegay inay isugu xidhan tahay waxa la yiri milyan iyo 2 ilaa milyan iyo 6 inta u dhaxaysa ayaa mar walba halis ugu jira cunto yari waa arrin weyn oo adag وأرين مسؤولين هل كان فردة الدولة ده هيرك كل دوان كصعدة لو بهاي إنه حلو هلنا ده كده مقدشوا حنو مرينا إيه الرجاء فقه بقدومية كهاي روش كا وحنا نقول صوت دقيق كنتن كن أو متركتن أو قمدية الدون كي مركو فريستبا وحلا يروار صومالي هلو جرمدو مرنا روش مرنا مريكان مرنا قليا كله لكن قرمت كاس مد سي جوكسنا يا ماها مد اللي جوكتين يا ماها معلم معلمها كم إذا أدون كابا أنت حالة كارو سنتو بمرن كبضوه حرميان مرن كبضوه مركا حرمان بقول كي بس ديتا وحاين نوعنو وحلقا كينا أدون وينها يوكرين إيه دلكا كلا وحبارة والسبب تمركا للي هلا كانوا برنامج دتكو يجو أي حكوسو صارنيا Soomaaliya wasiir xasan baa isixi karo waxaan u maleynayaa ilaa dhowr iyo 50 milyan oo xoolaha bay leedahay laakiin xoolihii say u dhaqan jirtay duruufuhu hadda u saamixi maayeen biyihii baa yaraaday bulshadii baa korodhay dhulkii baa sidii gawaari loogu waday nabad guuray xoolihii marka hadda magaalooyinka waaweyn caana lama keenee calaf baaba la siiyaa sarreen baaba la siiyaaba magaalada cidhifiyadeeda dadka caana geelka iibsada geeli hadda ma foof tago oo lama soo daajiye sidii dadkuba isaguna nafarkiisa dalbanaya waa arrin isbedel weyn ku keentay habkan u noolaan jirnay berigii hore qofka Soomaaliga odayga iyo islaanta qoyska lihi waxay yaqaaneen goorta Soomalka idaha lagu sii deynayo waxay yaqaaneen goorta xoolaha la daaqaynayo waxay yaqaaneen marka la aadayo hawd iyo marka halka la joogayo way u xisaabsanayd hadda dhulkuba uu soo ekaaday waa sababta wasaaraddu shaqada ay haysaa ay udub dhaxaad ugu tahay kobcinta dhaqaalaha iyo daryeelka bulshada waxaan aad ugu amaanayaa wasiir xasan hawshan in muddo abu ka soo shaqeynayay hormuud bay wasaaraddiisu ka tahay isbedelka cimilada iyo sidii loola noolaan lahaa meelna uma socdo hal noolaada baa la yiri oo hal loo qalab gurto oo hal iska dahaado oo gaashaan adag hal laga xidho maxaa marka barnaamijkan uu suurto gelinaya wuxuu suurto gelinayaa qof dhowr boqol oo ariya lahaa marka ay abaar ku dhufato wuxuba ay ka baxaan ama in yar u soo hadho see loo kabaya see loo daryeelaya see inaanay taas ku dhicin loogala shaqeynaya biyo uu helaya loo raraya caafimaad uu helaya waa arrin u baahan xilligii kacaanka ma joogno dadka inta la soo raro gabigooduba beeraha la keeni jiray waa tan nin waliba hadda goof uu samaysto qof walba inuu halkiisa aamino lama joogo xilligii total migration uu dhici karay barnaamijkan marka barnaamijyo fara badan oo isdaba socda ayuu ku lug leeyahay asaasna u yahay marka waa xoolo dhaqatada iyo agropastoralist 22 milyan way idin la badan tahay laakiin waxa loo baahan yahay bilaayin dollar in la geliyo oo la sameeyo iskuulaad soo saara xirfadley xoolaha daryeesha oo la decentralize gareeyo waliba bay iyo bakool maxay ku wacan tahay waa in halka laga aasaaso dadka ku takhasusay soo saarista digirta iyo hawlaha iyo garowga dadka xeebuhu maxay ku wacan yihiin dadka jooga bari maxay ku wacan yihiin deegaankaas muxuu ku wacan yahay ay xasee looga hortagaya xoolihii cudurrada ku dhaca ama cudurro cusub ama soo kuwii hore waxaan u maleynayaa aragtidaas ayuu xambaarsan yahay barnaamijkani ugu dambeyn reer miyigu hilibka sida reer magaalku ay cunaan uma cunaan wuxuu ka doorbidayaa neef ahmina intuu iibiyo oo $60 siiyo inuu reerka bariis u siiyo haddii qolihiinan magaaladu aad maalin walba iska dalbanaysaan hilibka oo aad purchasing power leedihiin iyagu awoodda ma ay laha
waxa laga yaabaa maalin xus jirto oo islaan ay awoowe iyo cid dhimatay la xusayo in hilibka loogu soo dhunto hilibku iskama yaalo waayo qiimo ugu fadhiya wuu keenaya magaaladu keenaya wala dhoofinaya Sacuudiga la geenaya $100 buu reerka ku dhaqaya waa sababta malnutrition ku carruurteena ay ugu baran tahay waayo protein ma haystaan xoolihiina doorkaas u bixinayaan waa sababta ingiriiska hadda markaanu tagnay ee World Hunger Summit waa Sustainable Development Goal ka afraad mise waa ka koowaad in gaajada adduunka laga dhameystiro Soomaaliya dalalka carruurtoodu ay halista ugu badan ku jirto xagga gaajada saboolnimada nafaqo darrada oo ilmihii xataa hadduu noolaado aanu iskuul dhigan karayno maskaxdiisa aanay korayn barnaamijka xasan uu wado barnaamijka baxnaana la yiraahdo wasaaradda arrimaha bulshada ay wado waxa la rabaa inuu beerta ku kulmo waxa la rabaa meesha xoolaha lagu dhaqan inuu ku kulmo ee xamar cidhifiyadeeda iyo IDB inay ku kulmaan maaha waxba khaldan weeye markaa reermiyigii hore neefka ariga waxay u kala saari jireen markay qashaan saa marka loo qalaba waxa la oran jiray so iyo saan buu kala baxaya saan iyo so inta soo hadha waa so inta ka soo hadha waxa loo kala saaraa laf iyo lud waa wixii lafa iyo wixii ka soo hadhay wixii lafta ka soo hadhay ludka waxa loo kala saaraa jiid iyo jibaad soo saasuma taqaanaan hadda ilmaha yar hadda koraya ma arkaba wax yar uu nuugo oo UNHCR ay u keentay bisugaya dadkeenu waa in habkii noloshii ay ku noolaayeen loo suurto geliyo iyadoo ah mid iswadaysa oo aan isbedel oo la tacaalaysa isbedelkan cimilada wasiir waa ku yara dheeraanay aad iyo aad baan kugu hambalyeynayna hal loo arko in si wada jir loo shaqeeyo wasaaraddu si wada jir u shaqeeyaan guuliyo gobonimo idin rajanaya waa maasantiin